magaalada Og waxa ilaa iyo maalintii shilkaasi uu dhacay ilaa iyo maanta ku jira howlgal lagu baadi goobayo raggii maxaan ku dhahdaayay fuliyey hawshaas saraakiisha ku geeriyootay iyo dadkii kale ee maxaan ku dhahdaayay gacan saarka la lahaa maanta waxaynu gacanta lagu hayaa 3 ka mid ah raggii howlgalka fuliyey iyo 10 nin oo xidhan oo loo haysto abaabulayaal gacan siin taakulayn iyo rag baadhis ay ku socoto oo tuhuma ay soo galeen 10 ninna waa la hayaa waxa maxaan ku dhahdaayay kala oo la hayaa gaadiidkii maxaan ku dhahdaayay nimankaasi ay ku hawlgaleen na waa la hayaa 4 gaari oo kamid ah gaadiidkii lagu hawlgalay iyo 1 gaari oo gaadiidkii maxaan ku dhahdaayay hawlgalku markii uu dhacay taakulaynta maxaan ku dhahdaayay sameynayay intaas gacanta lagu hayaa baadhitaankii baa ku socda maxaan ku dhahdaayay sharciga maxaan ku dhahdaayay ayaa la horgeynaya waxaynu ognahay deenu haddana qaranka reer Somaliland waxaynu nahay qaran curdina oo aan caalamka la aqoonsanayn wali dawladeena Somaliland sifaha iyo qaabka aynu doonayno adduunyada in aynu ku qancino in Somaliland la aqoonsado waxa weeye waa nabadgelyada iyo deganaanshaha qodobkaasi waa qodob bulshada caalamku international community ay ka marqaati furtay in Somaliland mandaqadan aynu ku noolahay kuwa horeeya ee hawsha nabadgelyada inaynu maxaan ku dhahdaay aynu nahay waxa kale oo aynu doonaynaa in aynu maxaan ku dhahdaay adduunyada ku qarcino nidaamka dawladnimada hanaanka aynu doonayna inaynu maamulo inuu isaguna noqdo mid adduunyada indhaheeda inagu soo jeediya oo aynu maxaan ku dhahdaay aynu hawsheeda galno sida la ajligeed arrintan imika ayaantii dhawata dhacday waxay dhaawacaysaa nabadgelyo darrada aad iyo aad u dhaawacaysaa xasilooni darradana way dhaawacaysaa qarannimadana way dhaawacaysaa waayo maxaan ku dhahdaayay shilku wuu dhacaa siyaalo kala duwan buu u dhacaa laakiin kani wuxuu ahaa saraakiil ka tirsan saraakiishii qaranka ee qarankan u adeegisay sida la ajligeed ayaa culays fara badan maxaan ku dhahdaayay loo saaray